الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaan maanta oo 27 bisha aan jeclahay in hambaliyo u diro shacabka reer Soomaaliland meel kasta joogaba munaasabaddii shalay 26 bisha maalinteenu aan ka qaadanay dawladda Ingiriiska. maalintaas waxay maalin weyn waxay maalintii laynagu wareejiyay talada dalkeena waa maalintii aynu noqonay Jamhuuriyadda Soomaaliland baarlamaan dooranay ra'iisul wasaare dooranay ayay noqdeen hasaatee maalintaas 4 maalmood ka bacdi si aan u ka fiirsan lahayn ayay naga doonina 5 Soomaaliyeed oo muhiimad u weyn ahayd dalka la oran jiray Hawd and Safe Area Africa kii lagu wareejiyay Ethiopia si ay u heli lahayn ayayna Soomaaliya la midoonay midnimadaas oo ahayd mid laba kac ah oo aan la bilaabin cilmiyan la baarin maxaa khasaara maxaa faa'iido ahaydun laba kac ay ahayd midnimadaas koodii bishii July oo iyagoon weli aan xornimo helin la isku darsamay guud darro badan bay naga soo gaadhay dhulkeena waa laga guuray xogii waa naga qaaday marginalized baa naga dhigay markii dambeena cabanana diyaarada la noolin diyaarado xasuuq baa dhacay genocide ayaa dhacay Israel la noo dilay ilaahay mahadii shacbiga waa kacay 10 sanadood ayaynu dagaalaminay waxaan wax ka soo xumaana wala nagu sameeyay ilaahay subhanahu wa ta'ala guushiina siiyay dawladii aan la madownay iyo magacii aan ku madownay ee Somali Republic meesha ka baxay inagu Somaliland wala soo noqonay magaceeni 60kii la inagu wanqalay iyaguna Soomaaliya ay ka soo jirin ila soo baxay maanta ilaahay mahadi weeye Somaliland way jirtaa doorasho 7 baynu galay alxamdulillah rabbil alamin adduunka inoo soo jeesaday doorasho waxaynu galay qulubtii dadka ee tagtay soo nooleeyay disparate ka saaray adduunkii inaga tagay soo celiyay waxa loo baahan yahay in laga faa'iideysto maanta niyada wanaagsan ee dadkeenu soo celiyeen iyo taa adduunka bay noo soo noqday waxa kale oo aad iyo aad wax lagu farxaa 24 bisha oo DB World aynu dekadii fadhisti koowaad aan ka qayb galay DB World abaal bay nagu leedahay inagu ahayn dal aan la ixtiraamin ayay ku dhiiratay inay lacag nus bilyan u dhiganta inay inala gashay heshiiskaas waa jiraan dad badan oo aqli gaaban oo ka soo horjeeday laakiin guul Soomaaliyeed noqotay Somaliland bay noqotay arrinkaas oo timaada in yarun baa ilaahay garasho siiya laakiin midhaheedu waa la wada leeyahay guusheeda waa lagu wada faani karaa oo guul reer Somaliland u timi waxa weeye adoogeenu aad iyo aad buu dabcan isku diro bahasha dib u rido laakiin hogaanka wanaagsan ee DB World Sultan Sulaim bin Sulaiman ayaa ninka ku adkaasay bayru mustaqbalku ciyaala Somaliland the future is in Somaliland ayuu waa runtii the future is Somaliland waxaan leenahay maanta doorashada inoo dhacday khayrka inoo bilaabmay ay ka mid tahay kalidoorka berbera kalidoor inoo tagwaaji kalidoor in laga faa'iiso dawladdu waxaan ugu yeerinaa ugu baaqinaa soo ku ammaan madaxweynuhu doorashadii saarneed ee daaday inuu markii dambe Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu waafajiyay lacagtina u bixiyay 175 markii adduunka inaga qaaday faraha ay saahin koon heshiin maayeen waxaan madaxweynaha inuu iska daayo dagaalkan gudaheena 30 buu helay xildhibaan
صدن كاحل لبانها كو إكادو أغلبية دتك لها لك قدومية هاي نوع علينين مدحوينه شرع الدهر دي كذا على الدلك دور شدي الله وكوني شنتي وكل مية وضبها له صدح هي صدق وعجها له كوبي لبعض كل مية له تضبي لبعض شرع الدهر دي كانت هي إنه كل مية اللحدة يشوا اللحدة يلا بقى حلبان وضني أون دور شبك لينا ويشا لبعض أنا كو عذوت شيء كوبي لبعض اللي عمل حلبانه وشرع الدهر دي أدوك وفوش حماد دعوي تيها إنه قاعدين صدق بعض هالشيء صدق لبي حسبك على هلاي لبي كنتن إيمانسو شرقدون كوحلا إسبهاي سكاسالة حمانا معها حمانا ما هو check and balance ذلك يوم لما قعدت كويس تبكي هجاجي كان هو كلها هجاجينية الود قعدت الأبسولوت باور دمرازي دموقلا waxaan ku leenahay kan noqo loobigaad uga heshid iyo sharci daradan dad xusbi ka soo baxay adoonaysa inay kaaga u footeeyaan ka noqon ku leeyahay waxaan xasuusinayaa xildhibaanan soo baxay inuu sharciga dastuurkeenu sheegayo qodobka 51 uu sheegay farqadiisa koowaad xildhibaankii shuruudii lagu soo doortay ka mid ah mid jabiya inuu kursi waayo innaguna haddaan u cudnahay lawyer baan u dhiibnay waa soo faahfaahiyey xildhibaan musharax kasta waanu ka seexnay noo tayo sharciga way noo yaala ragga kulmiye isku hortaas taswiray ilaa waxaanu nahay musharax waxaan xasuusinay inuu sharci jiro waxaa kaloo madaxweyne xasuusinaya madaxweyne dowlad samee dowladdaadu ma shaqayn 4 sano dowladii ugu tayada yareed taariikhda Soomaaliland bay noqotay sanadkii barka ku haray si aynu uga faa'iideysano himilada fiican adduunka joogto xoogan isku darno dalku haas dowlad hagaagsan sameeyso dalku uu taagan yahay stagnation buu galay dhaqaale hoos buu dhacay iskuuladu way xiran yihiin macallimiintu waa bilaa mushaaro kuwi private-ka dhaqaale hoos buu dhacay dowlad shaqaysaka dowlad shaqays ilaahay ka boqo waxaan halkan arkay farmaajo oo ka hadlaya Soomaaliland horta waa nasiib daro inuu maanta farmaajo dalkeena ka hadlo farmaajo taariikhda wuxuu ka yaqaanaa intii kacaanka taasana ku dhamaatay ku bilowda aqoontiisa taariikhda Soomaalida kuna bilowda kuna dhamaata markii farmaajo la weydiiyey laga dhigay madaxweynaha ayaa nin ay wada joogeen New York Buffalo ayaan weydiiyey aan bal farmaajo ka waran wixii uu farmaajo ku waramay ay ku yugiso wuxuu la mid yahay ilmo 10 jira ka bacdi waxaan kula kulmay Belgium waxaan ogaaday inuu ninkaasi qaldamay aanu 10 jir lahayn uu 5 jir yahay ay ku yugiso taas waxay ka marxaad kacaysa shalay wuxuu ku hadliyay dhalinyarada ay timiyo midnaba ka shaqaynayso waninka waxa ku sheegaysanaya tigirkiisina uu go home kiis tigirkiisina uu go'ayahay waxaan ku leenahay farmaajo Soomaaliland dhalinyarada ma keen karto nacasimadayada ayaa qarannimadayada inaad maanta ka hadashid oo la ilaa ka wada hadla Soomaaliya oo waxba nagu lahayn tamar daraantiyada ayaa keentay halkaas ay nagu dhamaanaysaa Soomaaliya damba la hadli mayno dalkayga waan haysanaa United Nations application baan qoranaa adduunka wala macaamilna wax alla wax culays nagu haysan Soomaaliya ma jirto waxaan hambaliyanayaa dhalinyarta aqoon-yahaniinta journalistyada ee saaray ana sameeyay baaris research-ka sameeyay waxaan hambaliyanayaa dhalinyarta Somaliland Youth Society iyaguna analysis sameeyay ee halkaas soo dhigay inuu yahay xaq yahay booliskaageenu inagu aynu tamar aan ku doorano adduunkii weynay ayagana soo dhaweynaya maanta laga bilaabo doorashada markay naga dhamaato waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha inaynu culayska saarno
sidii aynu ixtiraafkeena u wadi lahayn adduunka ula macaamil lahayn Soomaaliya wada hadalkeeda joojin lahayn iyo inta aynu arinteena u ashkatoon lahayn kursigeeni aan ka doonan lahayn yaa leeyahay marka ay maslaxa waxaan leeyahay hambaliyo dadka reer Soomaaliland aad iyo aad baan hambalyeynaya insha Allah 26 Juun 26 dambe inagoo barwaaqo ah cudurka inaga tagay ictiraafkeena helay in insha Allah dabaal doonaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.